barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. Assalamu alaikum. I've got two questions to ask. The first one is that why can't a Muslim girl get married to a non-Muslim guy and still follow Islam? And I've got one more question. As it is acceptable in Islam for a man that he can marry 4 times, do he have to inform the first wife about the second marriage, or he can marry without informing the first? walaashu laba su'aal bayna weydiisay. Su'aasha labaadayna weydiisay waxa weeyaan diinta islaamka muslimiinta ma ku waajiba inay qaataan idinka xaaskiisii hore intuusan guursan tan labaad. iyo su'aasha koobaad oo ahayd maxaysan diinta islaamka ugu banaaneen in ninku guursado haweeney aan muslimad ahayn. midda ku saabsan su'aasha koobaad I'm sorry. It's like if a girl is born in a Muslim family, why she cannot marry a non-Muslim guy and still follow Islam? maxay gabadha muslimadda ah u awoodin inay guursato nin aan muslim ahayn iyadoo jirto inay baaqi ku tahay diinta islaamka? sababtu waxay tahay arintaasi waxay khilaafsan tahay tacaaliimta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay suuratul baqara suurada 2 aayada 231 ha guursanina kuwa mushrikiinta ah ee aan Allah rumaysnayn ilaa ay Allah ka rumeeyaan. kuwa sanamyada caabuda ha guursanina kuwa aan Ilaahay rumaysnayn ilaa ay ka rumeeyaan. xitaa haddii mu'minku adoon yahay xitaa haddii uu yahay adoon la haysto wuxuu ka wanaagsan yahay oo ka fadli badan yahay in badan midka aan rumaysnayn Allah. wuxuu ka wanaagsan yahay mushriga wuxuu ka wanaagsan yahay ninkaasi aan Allah rumaysnayn haba iyaab galiya ninkaasi yani xitaa ninkaasi ahaado ninka ugu naxariista badan caalamka ninka ugu hodansan ugu qanisan caalamka balse ninka muslimka ah waxa laga yaabaa inuu madow yahay waxa laga yaabaa inuu falxun yahay waxa laga yaabaa inuu adoon yahay asaga ayaa darajo ahaan sareeya alle agtiisa. isla sida oo kale aayadu waxay leedahay arinta ku saabsan ninka waxa waajib ku ah inuu san guursanin haweeney mushrikada ilaa ay Allah rumayso. haweeneyda mu'minada ah xitaa haddii ay tahay adoon la leeyahay iyada ayaa darajo ahaan ka sareysa midda aan muslimada ahayn. midaasi haba in yaab gelisay. sababka caqliyeysan walaashay waxa weeye gaari ama mid xamuula haddii mid kamid ah taayirada uu yahay taayirka mootada oo taayirka kalena yahay taayir gaari xamuula gaarigu miyuu socon karaa? run ahaantii waa maya. waxaa waajiba in taayirada afarta ah isku mid yihiin. su-aasha waxaa dheer ma u suurtagala gabadhaasi inay noqoto muslimad wanaagsan iyadoo guursatay qof aan muslim ahayn? sababku waxaa weeye in diinta islaamka annagu inaan doonayno in qofka lamaanaheena ah uu nala aado jannada. iyada way heshay way ogaatay wadadii jannada u wadi lahayd waa inay islaamka raacdaa. waxaa ku waajiba inay dabaqdo oo ay sameeyso quraanku wuxuu amrayo iyo xadiidka saxiixa ah. hadda suurayso marka ay ogtahay inay iyadu jannada aadayso oo xaaskeeda sanamyada caabuda oo aan Ilaahay iyo islaamkaba rumaysnayn uu aadi doono naar. noloshani walaashay waa qayb yar oo aad u gaaban marka la barbar dhigo noloshan waxaa laga yaabaa inay sii jirto 20 sano 30 40 50 sano meeqa ayay dheeraanaysaa 60 sano. nolosha aakhiro waa nolol weligeed ah. taa micnaheedu waxa weeye haweeneydaas inay tahay anaaniyad mid kaligeed wax isla rabta. muslimka wanaagsan iyo gabadha muslimadda wanaagsan waxaa ku waajiba inay lamaanahooda la doonaan inuu jannada la aado. waana ka sababka muhiimka ah ee ka yeelaya ninka iyo gabadhuba inay noqdaan muslimiin. haddaan u imaano su-aashaada labaad ma ku waajiba qofka muslimka inuu idin ka qaato xaaskiisii hore intuusan guursan xaaska labaad? maya maaha waajib haddii aan lagu sheegin caqdiga guurka. haddii lagu sheego caqdiga nikaaxa oo ay haweeneydu caqdiga guurka ku qorto inay waajib tahay inuusan guursanin xaas labaad inta ay nooshahay markaas inaad idin ka qaadato waa qasab. haddaan lagu sheegin caqdiga guurka waajib ma aha laakiin ugu yaraan waa inuu ogeysiiyaa. oo maxaa dhacay gaarsiinteedu in halbagida guurka waxa kamid inaad guursato hal wax ka badan sida quraanku ba ku leeyahay suuratu nisaa suurada 4 aayada 3 guursada wixii idin wanaagsan oo dumar 2 iyo 3 iyo 4 hadaad ka cabsataan inaad cadaalad sameeyaan hal mid guursada. haddaba mid kamid ah halbagida guurka oo ah inaad guursato hal mid wax ka badan waxay noqonaysaa inaad xaasaskaaga cadaalad sameeyso. haddaba haddii aadan xaaskaaga u sheegin sidee baad cadaalad ugu sameynaysaa xaasaskaaga? inaad been sheegtaa laga yaabaa oo tiraahdo waxaan aadayaa xafiiska waxaan aadayaa magaalada banaankeeda mana aadaysid. sidaa darteed haddii aad guursanayso xaas labaad ka idin qaadashada xaaskii hore laazim ma aha qasabna maaha laakiin ugu yaraan u sheeg si aad u noqoto mid cadaalad u sameeyay xaasaskiisa. waxaan rajeynayaa inaan su-aashaada ka jawaabo walaashay.
يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي